xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada dadka kala duwan ee milgaha iyo maamuuska leh ka soo qayb galay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo kulanka lixaad ama shirweynaha lixaad ee dhalinyarada ee hoggaanka iyo hal abuurka. shirkani arrimood oo waaweyn ayuu taabanaya. mid waa dhalinyarada. waxaynu ognahay dhalinyaradu dal kastaba inay tahay cududda ugu muhiimsan ee horumarka dalka qaybta laxaad leh ka qaadata. innagana keennu kuma sii jirabe in ka badan 57% ayaa dhalinyaro ah. marka muhiimaddaas ayay inoo leedahay dhalinyaradu. arrinka kale ee uu shirkani xoogga saarayaa waxa weeye hal abuurka, gaar ahaan dhanka tiknolojiyadda ayuu xoogga saarayaa oo iyaduna taabanaysa arrin weyn oo dhalinyarta haysta oo ah shaqo la'aanta. oo haddii aynu si hufan uga faa'iidaysanno tiknolojiyadda oo hal abuur la nimaadno inoo saamaxaysa in shaqo la'aanta baahsan ee dalkeenna ka jirta aynu wax ka qabanno. hal abuurku aasaas iyo asal buu u yahay horumarka dhanka digitalka. hal abuur la'aan lagama faa'iidaysan karo. marka waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay la timaado xuluul iyo solutions ay hal abuureen oo xallinaya dhibaatooyinka faraha badan ee dalkeenna ka jira. sidoo kale waxaa annagana nala gudboonka dowlad ahaan iyo private sector-kaba in dhalinyarta lala raadiyo maalgashi si ay hal abuurkooda u horumariyaan oo uu u hirgalo ayaa annagana nala gudboon. ka dowlad ahaan xoogga ayaanu saaraynaa sidii kor loogu qaadi lahaa hal abuurka dhalinyarada. waa ogtihiin qorshaha qaranka NTP-na waa ku xusan tahay in tiknolojiyadda si weyn looga faa'iidaysto. qorshaha 2060 ee dalkeenna ee madaxweynuhu daahfurayna waa ku xusan tahay. marka ahmiyadda intaa leeg ayay tusinaysaa. wasaaradda isgaarsiintuna shaqooyin badan ayay ka wadaa dhanka horumarinta isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda, hadday tahay dhanka shuruucda iyo siyaasadaha, hadday tahay dhanka infrastructure-ka ama connectivity ha ahaato oo dhanka internetka baaxad leh ay ka socoto oo aanu rajaynayno in dhowaan dalku national backbone yeesho, ama ha noqoto dhanka in kor loo qaado ICT-ga. waxaa dib loo yeegleelay oo wasaaraddu ay dib u yeegleeshay maxadkii isgaarsiinta qaranka oonu rabno inuu qayb ka qaato horumarinta xirfadaha digitalka ee dalkeenna. oon rabno inuu noqdo innovation hub dhalinyaradu ay timaado oo lagu kobciyo hal abuurka dhalinyarada gaar ahaan dhanka tiknolojiyadda. sidoo kale waxaanu doonaynaa oo qorshaheedu socdaa inaanu la baatnagarayno jaamacado badan oo dalka ku yaala oo dhaqaalihii loo diyaariyey si xirfadaha ICT-ga ee korka dalka ama dhalinyarada kor loogu qaado. oo dhowaan intaanu isla dejinno xirfadaha loo baahan yahay ay dowladdu dhaqaalo ku bixin doontaa si dhalinyarada xirfadaha loo baro. waxa weeyaan waa ballanqada ay dowladdu samaynayso oo aad dhowaan haddii alla yidhaahdo aad arki doontaan. intaa ka imaado waxaa ogtihiin dhalinyaroy in dowladdu ay wado in qadii dadka Soomaaliyeed gacanta loo geliyo. dadka Soomaaliyeedna dhalinyarada ayaa u badan.
waxaynu u jihaysanay in dalkeenna ay dimuqraadiyada ka hana qaato oo qofka Soomaaliga xaqa uu dastuurku siinayo ee ah in wax doorto kana la doorto inuu hirgalo oo madaxweynuhu nagu hogaaminayo taana waxa la rabaa inaad si laxaad leh uga qayb qaadataan oo waxa weeyaan hadda waxa socotaa in dadkii waa kii isdiiwaan geliyay siba gobolka Banaadir kaadhadhkii codaynta aad qaadataan dadkiina iyo eheladiina aad ku baraarugstaan inay qaataan oo si ballaadhan loo qaato markay doorashadu timaadana inaad si baaxad leh doorashada golaha deegaanka ee soo fool aad uga qayb qaadataan oo intii sharaxaysaana ay sharaxdo inta kalena ay codkooda ku cilbaxaan oo qofka ay u arkaan inuu ka turjumayo masiirkooda oo uu qalmo xilka ay u codeeyaan hadal badan odhan maayo taasaan kusoo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.